dhalinyaro dalkeenu waa macdan waa meeshii loo soo shaqo tagi lahaa meeshii laga qaxi lahaa meeshii laga tagi lahaa meeshii laga haajiri lahaa ma waa meeshii loo soo haajiri lahaa loo soo kici lahaa loo soo shaqo doonan lahaa weeye maamul xumaana haysa maamul xumada in ilaahay naga saarabaan ilaahay ka bariya ilaahay boqorka waxaan bariyaa inay nafihiina qisaasin waa idin tabiib gelin oo aydin magafa isu dhiibin waa idin badda ku dhiman oo aydin saxaraha ku dhiman oo dalkeena nimca iyo adduun iyo barwaaqa ka soo baxaysaa inaad joogtaan oo dalkeena ilaahay aad u baridaan annagoo da'diinaasa yaanu 47 intaas aanu Itoobiya la dagaalmay inagoo geersida xaro hadaynu xornimo qaadano xornimo inooma ogola weyn soo juumaysa wixii qori haysto kaal ninka raga taariikh iyo magac iyo maalba waa ka tagaa maxamed siyaad bare ilaahay janna fatusaha ka waraabiyo magaciisuna ha jiro wuxuu ka tegay dal iyo dad waa ka tegay dad waa ka tegay waa ninkii libaxa Afrika Itoobiya oo loo yaqaan waa ninkii bisada ka dhigay وين ذوقات بس خطبتيسي waxa kamida uu sheegi jiray imaan la wayash goorti markuu arkay wasiirada iyo madaxda jaanada siday wax u wada imaan la wayash orange way ku sifowna imaan la'aanti way ku sifowna وينك موقع وحو أورنج روكله دل غنية هي دل فخرية سكود النور وينو تشيل وحو أورنج روكله دل واكتة لكن دل كتة معي وحو أورنج روكله هناك جميسية جمنيمو قاعد كدور خطبتي سبيه كميدا وها كميدا dalka abaartii daba dheer markay dhacday reer waqooyi waxa allaale wax ka hadhi lahaa ama magaca ama nafa ama maal ma jirin haddaan isaga iyo maray ruush ilaahay u soo diray ilaaha dhaqaalaha leh iyo dadkii daji badda beeraha iyo daji beeruhu dajiyay sablaale كنت واجي براوي عدالة شغلي نلقى سوق ندش سوق هالجبي نلو هالجبي إنما ما سوى مري يعني تاريخ السوق ما مدة